الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب قبول الهدية من المشركين. هو باب يهي هدية oo laga aqbalo qof gaali haduu ku soo hadiyeeyo hadiyadiisa ma la aqbalahayo mise lama aqbalahayo. baabkaas ayuu u baabaystay. kitaabul waxaan ku jirnay hiba ayaynu ku jirnay, marka hibo iyo hadiye iyo sadaqaad iyo wixii dhan baa isla soo dhexgelahayo. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، أبي بكر الصديق وي قال وحيد كنا وحنا هين مع النبي صلى الله عليه وسلم عن لا تشوغني 30 و100 أنغو بقوليا صدن 30 صدن و100 هي بقول أنغو بقوليا صدن قفا أيان لا تشوغني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول حولي هل مع أحد منكم ما هذا مع أحد قف ومنكم من كمذا دعام من كمذا عنطم هيا وح عنطهيا ومعيس عنطتهي يعني وحون هيست عنطه مجرى. فإذا وقت قاسم مع الرجل نبا معيس وحا هذا ساع سوس ومن دعام عنطه. هل نبا أكتيس وحا لغا هلي هل سوس عنطه وبروي أو حنجد وقمندوي أو نحوها والله حلمد أما السوس أما وحلا من ساع ولبا كيليا بروي يعني لبا كيليا بد waxa u dhigma waliba markii salasiid xaqiiqi la sii xaqiijiyo uu ka yahay 2 kiilo iyo 300 gram meelahaas weeyaan maadooyinkaas ku khilkhilaafaan. facujina xoogaagii qamandiga ahaa ayaa la cajiimay oo cajiin laga dhigay. dama waa la ridqo waa la tumiyo waa la burburin. ثم جاء وحي رجل مشرك iyadoo kii la cajiimay ayaa wuxuu yimid waxay nin gaal ah mush'aanun oo basaasan waa nin timihiisu shanlaysnayn oo maarad maxay ahayday timihiisu maarad maxay isku aadanin weyn oo iska basaasan. dawiil waa nin dheer. ninkaas basaasan ee dheer baa yimid biqanamin ari buu keenay. arigaasoo yasuuqaha uu kaxaynhayo ari uu kaxaynhayo ayuu keenay. faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu ku yidhi ninkan ariga isagaa la soo aaday nabiga iyo saxaabadiisu la soo aaday. faqaala wuxuu yidhi nabigu sal ly salam baycan am hadiya am cadiyatan. baycan ma beec baa ma beeco waxa xoola aad gadaysid baa أم عضية مسوا واحد بحينيس إيه طبيعي بيعا أم تعطينا عضية مسوا واحد نصين أساس اسمها يا نصين يساوي. أو قال وحي أم هبة مسه تهب لنا هبة هبة هم النصين يسا ميا نصين يود والنصين يسا مسه ونقدر يساوي. قال وحي بل بيع وبيع حرام بيع ما هو تاوي نكقض ياوي. فاشترى وحو كقض منه يساقى shaatan neef ari oo ka gaday. shaatadu ridana way ku dhacdaa laxdana way ku dhacdaa. aduu neef ari un baa laga gaday. fasunicat waa la sameeyey yani laxdi baa la qalay weey oo hilibkeedii la hagaajiyey waa la qalay hilibkii intii la qowracay baa la qalay. wa amara nabiyu sallallahu alayhi wasallam wuxuu amray bisawaadi albatni beerkeedii buu amray minha iyada ka mida wuxuu amray an yushwa in la solo ayuu amray. beerkii buu yidhi ha la solo. wa imullaahi ilaahay baan ku dhaartay ay yamiini allah weeyaan ilaahay baan ku dhaaranhayaa wey baan ku dhaartay maa fi 30 soddonkii iyo walmi'ati boqoliyo soddonkii qof ma jiro ilaa waqad xaza waa gooyey annabiyu sala allahu alayh wasalam lahu qofkaas xazatan goosmo ayuu u gooyey. goosmadaasoo min sawaadi badnihaa beerkeedii ah. sawaadulbadni waa beerka weeye. dabcan waa laga yaabaa sawaadulbadniga markii la yidhahdo beerka iyo wadnaha iyo inay israacaan iyo keliyaha iyo laakiin inta badan beerka ku dhacaysa. beeryarta laftigeeda waa la cunaa. beeryarta laftigeeda waa la cunaa. tafaasiirta qaar baa ku fasiraysa min sawaadilbadniga
inay xataa maarata maxay uur ku jirta caloosha iyo waxaas iyo inay ku jirto laakiin waxay u badan tahay haddii calool inta laagaj waqti way qaadane inay beerka uun tahay hadday wax raacdaan beeryarta iyo wax lamid a ay raacdo soomaalidu beeryarta maba cuntaba inta aqaan hadan ku aqaan aan ka hadli mooji waa kale waaye in kaana shaahidan hadduu yahay ninku mid jooga oo meesha xaadir ku ah acdaaha wuu siiyey rasuulku iyaahu isagii buu siiyey acdaa wuu siiyey haa oo beerkiia iyaahu qofkii buu siiyey ninkii qaybtii ku aaday ninkii jooga waa loo dhiibay wa in kaana qaa'iban hadduu ninkii qaan maqan yahay ilaan ciidan fara badan oo meel socda qaar baa biyo loo diro oo qaar baa waardiye loo diro oo qaar baa haa wa in kaana qaa'iban hadduu ka maqan yahay markaa uu meesha joogina khaba'a lahu wuu u qariyaan takhbiyadu waa wax loo qariyaan meel baa loo dhigay wey takhbiyadu asalkeedu waa wax la qariyey wey laakiin hadda waa loo dhigay wey macnaha meel baa loo dhigay wey fajacala minhaa ay fajacala wuxuu yeelay laxma shaati hilibkii maarata maxay ahayde laxdii ama neefka adhiga ahaa qascatayni laba xeeduu ka dhigay laba xeed ayaa lagu kala shaqay yaa lagu kala riday fa akaluu way cuneen ajmacuuna dhammaantood ajmacuuna yani akaluu kulluhum yani waa ajmacuuna waa kalimaadka waad garanaysaane tawkiidka weeyaan fa akaluu way cuneen ajmacuuna dhammaantood baa cunay marka ajmacuuna tawkiid weeyaanoo damiirka akaludu waawda ku jirta ee maarata maxay faacilka ayay ta'kiidinaysaa saa darteed iyada lafteeda marfuucu tahay ajmacuuna dhammaan way cuneen wa shabicnaa waanan dhergnay buuri hilibka cunitaan iska dhalamaa maaha iyo beerjoos xoogaa kalijulqa maaha waa la dhergay fafadalat waxaa soo hadhay alqascataani labadii xeedho ayaa waxbaa ku soo hadhay fadl ayaa ku soo hadhay dhacaan baa ku soo hadhay faxamalnaahu waan raray cala albaciiri riti baanu ku raray cala albaciiri daban ritigu hadda wuu tacriifiyey waa riti iyaga agtooda mucayan ka ahaa riti baanu ku raray ow kamaa qaala ama siduu yahay in lam yaqul kada hadduusa cabdiraxmaan saadhin raawigaa dhihi ow kamaa qaala cabdiraxmaan wey xadiidkan macaani badan baa ku jirto macnaha ugu muhiimsa hadda innaga meesha laynoogu keenay baycan am cadiya wey ama hibatan miyaad naga gadaysaa adhigu ma iibbaa mise waa siisma oo waadna siinaysaa kaafirka marka in laga aqbalaya ninka gaalkaa hadduu hadiye kuu soo hadiyeeyo in laga aqbalay baa laga fahmaya wax dhiba kuma jiro hadduu hadiye kuu keeno wax dhiba ma leh waa la aqbalahayaa ayib xataa maalmahooda ciidda ah haddii ay wax keenaan wax dhiba kuma jiro allahuma ilaa in wax markaas macnaha shirkigooda ku saacidaya hadduusan ahayn shirkigooda ku saacidahaya laakiin uun faraxay dareemhayaan dee waxyaabo cunto iska xalaala ay keenaan wax dhiba kuma jiro waxaa kaloo ku jirta meeshan mucjiza min mucjizaati nabi sal salam nabiga mucjizaadkiisii oo ah cunto yar wayna soo maray qaarna wayna soo maray kanna waa mid ka mid ahun intaasoo meelood ayaa cuntada ilaahay barakeeyey intaasoo meelood yaa ilaahay cuntada barakeeyey tanna tii bay ka mid tahay neef adhiya beerkiis waxaa weeye haddii uun la yidhaahdo ha la cuno nin unbay uun xoogaa ay celcelin kartaa hal nin unbay maarata xoogaa yar celinaysaa de waxaan rabaa wixii hal cuno la yidhaahdo ilan xoogaa beerka adhiga waa la jarjaraa baadiyaha iyo meelaha magaalooyinka meelaha qaarkood waxa ugu horeeya ragga la siiyo ka mid yahay tii la shiilo yaa maarata la siiyaa laakiin de maxay tahay maaha in laga dhergay xoogaa ninba inuu laba jeer darsado weeyaan marka neef adhiya in beer adi neef adhiya beerkiis 130 nin in mid walba in looga jaro ya waxaa kaloo idan mucjizaha neefka adhiga ahaa hilibkiisii 130 nin inay ka dhergaan waxaa kaloo mucjizaha 2 kiilo iyo badh
oo maartay maxay qamandi oo la shiiday 130 nin in mid walba intii la dubo mid walba de in hilib iyo waxa la isku siinaya maartay maxay hayday iyo khubz baa la isku siinaya waa la dubayaa ma joogsanayso aan soo maray qisadii Jaabir waxaan jeclaynaa soo maray maartay intii yar iyaduna la dilayo la dubahaye kunnin baa cuntay waa waxar yar waliba neef weyn ma ahayn waxar yar iyo wax yaroo qamandi oo la shiiday kunnin marka waa mucjiza min mucjizaatillahi marka ilaahay awoodiisa loo fiirxaba ilaahay kuma ah subxaanahu wa tacaala daruur yar baa arkaysaa ilaahay awoodiisa daruur yar baa meel ka soo hoori roob weyn oo isu soo qabsaday maaha hal daruur baa meel ka hoori markaasay dhul dhan bay biyeynaysaa markaa daruurta fiirisid daruur yar wey markay horeyso hal daruur baa meesha ka hortay meeshii baa tegi saa waxa weeye balliyada dhan way buuxaan dhijaamaha boholaha dadkii meeshaas joogo dhan waa wada qabsan waa hal daruur wey ilaahay awoodiisa ninbaa wuxuu ka hadlayay baa lay malaha 50 booyadood baanu dhulkeennay meel malaha abaar ay jirto Soomaaliya meel ka mid 50 booyadood ayaa meel la isugu keenay oo la wasacay oo dadkii waxba u tari waayay hal daruur baa maalinkii ugu horeysay reeraha u daadayo daruurtii baa wada dherijisay marka ilaahay awoodiisa subxaanahu wa tacaala waxba kuma aha laakiin waa mucjiza min mucjizaati nabi sallallahu alayhi wasallam طيب xadiidku waxaa kaloo ku jira saxaabadu iyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam yacni nolosha ay ku noolaayeen ay ku halgamahayeen ay ku jihaadahayeen nolol macaan inaysan ahayn nolol shadaful caysh nolol adag inay ku jirtay nolol adag inay ku jireen ayaa laga fahmaya waxaa iyadana laga fahmaya xadiidka adduunyadu inayna qiimo lahayn adduunyadu inayna qiimo lahayn maxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rusushii iyo ambiyadii uu doortay ayaa sidaa nolosha adag ku nool haddii adduunyada qiimo lahaan lahayd ilaahay subxaanahu waa u nimcayn lahaa laakiin laysa maali walidunya waa kan xadiidka soo maray hamaankii dhoweyd maali walidunya aniga adduunya waxaas ka galay buu rasuulka sal slam baabu lhadiyati lilmushrikiina mushrikiinta oo wax loo hadiyeeyo wax la siiyo can asmaa binti abi bakri radi allahu canhuma qaalad waxay tihi qadimad waxaa ii timid calaya aniga ummi hooyaday baa ii timid wahiya hooyadayna mushrikatun iyadoo gaal ah ayib fii cahdi rasuulillaahi sal lla ly sl nabigu markuu la ballamay ee la heshiiyey heshiiskii waqtiguu heshiiska la jiray sulxulxudaybiya fastaftaytu waxaan su'aalay rasuul allaahi sal alla alay sl rasuulkaan weydiiyey hooyaday baa ii timid iyadoo mushrika ah wahiya raaqibatun iyadoo wax doonaysa qultu waata waxaan inoo soo wadaba qultu waxaan yaa rasuul allah qadimad way soo gashay calaya ummi hooyada ii timid wahiya raaqibatun iyadoo wax doonaysa wax iga rabta afa asilu ummi hooyaday ma xidhiidhiyaa qaala nacam buu rasuulku yiri sal slam wuxuu nacam haa sili xidhiidhi ummaki hooyadaa xidhiidhi baa la yidhi oo waxsi marka yacni waalidba ha ahaato laakiin markaa shirki bay ku jirtay marka iyadaa gaal bay ahayd gaalka in wax la siin karo ama qaraabaha ku ahaado ama saaxiibtuna hadin ka dhaxayso ama dan kaleba kala haw oo hadiyad in la siin karo ayaa iyadana laga fahmaya ayib can cabdillaahi ibni cumar radi allahu canhuma annahu shahida wuxuu xaadiray cinda marwaan ninkii marwaan la odhan jiray libani suhaybin reer bani suhayb wiilashiisii libani suhaybin suhayb wiilashiisii muxuu ka markhaati kacay ana rasuula allahi sal ly slam rasuulka ilaahay acdaa inuu siiyey suhayban suhayb beytayni 2 guri wa xujratan 2 guri iyo hal qol faqadaa wuu xukumay bishahaadatihi lahum shahaadadoodii shahaadadii uu ka markhaati kacay cabdullahi ibni cumar yuu lahum u xukumay meesha waxaa la isku haystay koox wiilal uu dhalay ba ahayn baa laleeyahay shaarix wuxuu leeyahay xamza iyo xabiib iyo saalix iyo sayfi iyo cabaad cuthmaan maxamed yaa la kala odhan jiray waa suhayb mid la yidhaahdo maxamed suhayb isaga marka suhayb ibnu sinaan baa la odhan jiray asalkiisu waxaa baale carab buu ahaa laakiin waxaa qafaashaa la yidhaahdaa niman reer ruum ah ayaa qafaashay kadibna ruumtii uu ka yimidoo wuxuu u yimid maarata makuu yimidoo maka markuu yimidna qolyuu la galay maarata maxay xilf isbahaysa ama macnaha ay maarata maxay isbahaysteen
marka cabdullaahi ibni cumar wuxuu ka markhaati kacay inuu maarata maxay ahayday rasuulku sal salam uu Suhayb siiyey laba guri iyo qol uu siiyey marka shahaadatu cabdullaahi ibni cumar ayaa lagu xukumay oo Marwaan ibnu Xakam ayaa markaa Madiine haystay waa waqtigii Mucaawiya wey waqtigii Mucaawiya ibn Abi Sufyaan weeyaano Marwaan baa haystay magaalada oo muddo dheer buu haystay Marwaan ibnu Xakam ayuu haystay marka hal shahaada ma lagu xukumi karaa ma hal shahaada wax lagu xukumo culimada qaar waxay leeyihiin inay dhaarteen baa dhici karta inay dhaarteen ayaa dhici karta ama Marwaan wuxuu haystay macluumaad kale iyo shahaadooyin kale inuu haystay yay u badan tahay inuu ku qancay shahaadada ibn Cumar oo uusan maartay og u yaqaanayna waa laga yaabaa laakiin asalku waxa weeye wastashhiduu shahidayni min rijaalikum laba markhaati la iska rabaa fain lam yakuna rajulayni farajulun wamra'ataani hal nin iyo laba naagood sidaasaa macaamiisha badankeeda yaa lagu xukumaa laba shaahid ayaa lagu xukumaa waxaan ka ahayn azina zinada iyada zinada markii la xukumahayo ruuxa waxaa lagu xukumaa 4 shaahid baa la rabaa 4 shaahid ayaa la waa la adkeeyey waa mas'alo adag oo ilaahayna waa si adkeeyey subxaana wa tacaala hadda ogow sariqada xatooyada laba ruux hadday dhahaan waan arkaynay waa gacanta la jari وهكذا جميع الأحكام لبدا مرخاتي على قربها لكن إذا مارت الزنا 4 شهداء 4 مرخاتي أيال يسكربها أول سأل ما لأن الروح اللي الدلال الغيابة طيب هذا دي المدى الروح كلا تبغى الروح حكومة كرام وقته ومسألة عجيبة مسألة قونية وخاصة وهي لأنه روح يروح دي لفتيس روح دي لفتيس لما شاهد دي مرخاتي كعان وإلهام لقى أركين والله دي waxaa loo adkay waxaa laga yaabaa diliinka kaliya maahe mas'aladani sharafkay ku tacalluqdaa waa mas'alo khaasa oo meeshaas ruuxii dee ruux isagu bannaanka soo dhigay mooyaane ruux ciyaar lagu arkaa mas'alada lagu arkana maaha alcumuum ilaahay waa adkeeyey subxaana wa tacaala ayib baabu maa qiila fi lcumra waalruqba waxaa loo yidhi cumra iyo ruqba waxa weeye nin baad guri siinaysaa waxaad leedahay siisma toosa maaha inta aad nooshahay guriga adaa isticmaalay intaad nooshahay gurigaad wax isticmaalaysaa ruqbaduna waxa weeyaan inta aad nooshahay iyadana weeyaan sidoo kaleeto oo min araqabay ka timid baa laleeyahay mise min araqaba kama imanine min almuraaqaba oo ah kullu waaxid yarqubu saaxibu kan iyo kaas waa isdhowrahayaan keedu hortana haddaan dhinto haddaad iga hor dhimatid haddaan kaa hor dhinto guriga adaa iskale wey intaan noolahay ama intaad nooshahay marka culimadu way isku xoogaa soo noqoshadeeda way isku khilaafsan yihiin can jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qada nabiyu sal ly sl nabigu waa xukumay bilcumra waa cumrida intii aan sheegayno cumradii weeyaan oo ahayd inta aan nooshahay guriga adaa isticmaalaya annaha iyadu liman inay u sugnaatay wuhibad lahu ruuxii loo hibeeyey cumradu raqbaduna waa un lamid un bay isku dhow yihiine maarata maxay ahayday ruuxii loo hibeeyey yaa iskale baa lii ruux kale ma leh marka kii hibeeyey kuma soo noqonaysa wey maxaa yeele waxaad intaad nooshahay baa tiri culimada qaar baa waxay leeyihiin maya hadduu shardi u dhigo way soo noqon imaam axmed wuxuu leeyahay alcumra almutlaqa duuna almuaqata buu leeyahay haddii ay mutlaqa tahay guriga waan ku cumri siiyey haddaad tirahda saas oo kaleeto waa asaxaysaa buu leeyahay maaligna wuxuu leeyahay fii jamiici axwaal waa tamliikun limanaafici daar weeyaan waa iyaduna soconaysaa wey ayib shaaficiyadu waxay leedahay way asaxaysaa waana ninkaasaana qaadanaya sida xadiidkan ka muuqata aduu ilmi khilaaf baa ku jira culamada qaarkood laakiin sida xadiid ka muuqata waa ruuxii la siiyey liman wuhibad
rasuulku saasuu leeyahy liman wuhibad lahu gurigaas intaad nooshahay ku noolo oo isticmaal oo hayso waa siismo wey siismo wey way kaa wareegaysaa haddaad rabti inaad gurigaaga haysato gurigaaga iska hayso gurigaaga soo hayso laakiin guriga bix haddaad bixinaysid si toosa u bix marka ruqbadii cumradu waa noocaas weye intaad nooshahay guriga waan ku sii wey ninkaasaana qaadanaya baabul isticaarati caariyeysasho lasoo caariye qaato lilcaruusi caruuskii loo cinda albinaa markuu wax dhisanayo ninkii markuu wax aroosahayo uu wax soo caariyeysto waxbaa lasoo kala caariyeystaa ilen inta badan aroosadu dadku khaasatan markay waxba haysanin markay maarata waxba haysanin maadadiina haysanin gabadha waa in la qurxiyo gabadha waa in la qurxiyo dhar baan loo soo caariyeyn oo dahab ayna lahayn baa habeenka hore loo soo xidhiyo laga yaabo xoogaa ila in la qurxiyaa la rabaa iyo jijimo iyo faraatiye waxyaabaan ay lahayn yaa maarata loo caariyeyn karaa waxaa kaloo la caariye weelashaa la caariyeystaa waad ogtihiin markii maalinkii la qabo carooska la samaynayo weliimada iyo weelal fara badan baa reer soo caariyeystaan can caaisha radiallahu canha annahu dakhala calayha waxaa u soo galay caaisha ayman baa u soo galay ayman ibnu ayman weeyaan ayman ibnu ayman weeyaanoo waa wiil uu dhalay maarata maxay ahayde xabashi buu ahaayo umu ayman baa dhashay oo usaama ibnu zayd bay isku hooye ahaayeen usaama ayay isku hooye ahaayeen annahu dakhala waxaa u soo galay calayha calaa caaisha ayman baa u soo galay wa calayha dircun diric bay qabtaa oo marada weyn qidrin oo qidri la yidhaahdo nooca diricaas nooca qidriga la yidhaahdo ayay qabtaa waa dhar adagoo xaggaa iyo yeman laga keeni jiray baa layidhi ilan waagii hore waxaa jiri jiray hadda aad uma badnee waagii hore dhar cadcad baa soomaalida xidhan jirtay dharka cadcad ee la xidho ragguna dhar cad bay xidhan jireen waa dawayda horeto wiilasha kurayda laftigood qayd baa loo goyn jiray qaydku iska caddaan jiray raggaa marmar waxay qaadan jireen macawiso dadka qaarkoodna laba goon bayba qabi jireen ragga qaarkood marka go'yahaas waxaa la kala odhan jiray maxamuudi iyo maraykan baa la kala odhan jiray maraykaanku way adkaa mara adoo qallafsan bay ahayd maxamuudina mara cadoo jilicsan bay ahayd maxamuudaa la jeclaa marka wayna ka caddayd marka maradaas dharka yamanta oo adag laga keeno ayuu ah wa fii riwaayatin min qutinin qidrin meesha ah yaa qutinin ahaa oo qudnigu waa cudbiga weye maadada cudbiga la yaama suufka inagu suuf baan idhaahnaa cudbina af soomaali ahaan cudbi way asalkiisu cudbi waa geedkan suufka geedku maarata baasha laga qaado wey kaasa dunta laga sameeyaa suufka carabiga markii la yidhaahdo inagu dee suuf baan iska nidhahnaa carabiga suuf markii la yidhaahdo suufka waa dhogorta xoolaha min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha athaahan wa mataacan ilahi waa keenaya subxana watacaala waa suufka xoolaha dhogorta laga sameeyo wey marada laga sameeya suuf noqonaysa wa ilaa tan iyago qutni bay dhahaan iyagu inagana cudbi baa la yidhaahdaa ama suuf dayib thamanu 5 daraahim maradaasoo thamankeedu yahay 5 dirham yay u dhigmaysa mara 5 dirham u leeyahay faqaalad waxay tidhi irfac basaraka irfac ayman bay la hadlaysaa aymanow irfac kor u qaad basaraka araggaaga ilaa jaariyati bal indhaha kor u qaad saa u fiiri weyn ujeedadu bal fiiri ilaa jaariyati gabadhan ii shaqaysa khaadimadda iya bal fiiri undur ilayha fiiri fa inaa iyadu tuzhaa waxay iska weynaysiinaysaa an talbasahu inay ku xidhato fil beyti beyt maradan waxay diidaysaa oo iska weynaysiinaysaa inay guriga ku xidhato maradan ayay iskala weynaysiinaysaa iska kibrinaysaa inay guriga ku xidhato iska kibrinaysaa waqad kaana wuxuu ahaa lii aniga waxaa iga sugnaaday minhunna ay min hada alathwaab maradan dircun mara weyn baa lahaa oo la gashado calaa cahdi rasuulillahi sal waqtiga nabiga famaa kaanad ma ahayn imra'atu naagtaasoo tuqayanu bilmadiina naagtaasoo madiine dhexdeeda macnaha la aroosahayo yani la hagaajinayo tuqayanu bimacnaa la hagaajinayo oo la qurxinhayo
مجرين. وفي رواية تزفن لو ديارين هيو لو قرحين هيو لزوجها زوج كذا وأروسكي معنا لو ديارين هيوين أروسكي بالله ديارين هيا إلا أرسلت ويسودري جرتي إلي أنا أيه فرين يسودري جرتي أما الروح بيسودري تستعيره يضع على رداء الفيصة يضع على رداء الفيصة أيه يسودري جرتي وين marka naag ma jirin xoogaa ismaarta ma rabta inay xoogaa nin loo qurxin hayo oo la hagaajinayo oo aroos la geynayo ilaa waa laga soo dalbi jiray maradan maantana maradan way ka kibraysaa gabadhan noocan maxaa yeelay dharkii baa isbedelay baahidina way isbedeshay waagi hore hadday maradaasi qaali ahayd qaali ma noqonin waa laga tegey saas weeyaan ujeeddada hadda waxaa weeyaan tan maalada iyo qurxinteeda ma ahee caariyada laga soo caariyeysan jiray loo soo doonanayo maarata maxay ahayd caaisha caariye la leeyahay taa wey marka gabadha arooska waa loo caariyeyn karaa markii tanihii lagu gutay maarata laga aqalgala isbuucay kaga baxdo ama bisha aroos kaga baxdaan xoolaha way iska celinaysaa marka waa inaga Soomaalida aad baa la isu caariyeeyaa caariyadu fadli badan bay waa nooc maarta maxay ahayday wax siismo oo caariyada iyo deynta iyo waxyaabaha dad ku dhaqan yahay kamid yahay laakiin waxaa muhiim ah in la isu celiyo oo ayna kugu tagin oo deyntuna ayna kugu fadhiisanin xisaan buu kugu galay wuu ku deymiyey deyntiisii bix markaad ku dangudatid lacagash kaas caariye ma galahay kaas waa baab gooni ah kaas baabul ijaar uu galahaya baabul ijaara ayuu galahaya ijaaraduna iska bannaan tahay min lawal xaq inuu maarta hadduna wax xaaraam ahayn xidhiba male baabur buu kaa ijaaraya guri buu kaa ijaaraya dhar buu kaa ijaaraya lawal xaq inuu kaa ijaartay saa iskale xoolaha tan haddaan ka hadlayno waa tii caariyadu intuu ruux u yimaado ay tidhaahda gabadhu maar taajkaagii isi oo taajkii lagu gelbiye gabadha ama dahabkaagii iso dahabka isku qurxiso wayaanta hore ninka iyo walacda dahabka iyo xoogaa ninka indhaha ay soo jiidato kadibna maarata maxay iska celinaysaa hadday maarata tiraa dahabkii nacwo yidhaahdaan dee dahabka dad baa lahaay xoogaa waa loo celiyaa yidhahdo dahabka awood baabu fadli almaniixati buu baab yahay almaniixa maalintii wey xoolo la ismaaliyo neef la baan ku maalinayaa oo irmaan wey neef irmaan ama hal ha noqdo ama geel ha noqdo ama ari ha noqdo ama lo ha noqdo neefku wuu irmaan yahay markaasaan ku siin oon ku leeyahay inta ay irmaan tahay caanaha ka maal maalinkay gudhana iska soo celiyo ii soo celi neefkii laguma siinin caanihiisa uu laga lisaayo yaa isticmaalaysaa caanahaasaa lagu maaliyey adigaa ilaashan xoolahagaad ku darsan waad ilaashanaysaa waa wax laga yaqaanay Soomaalida aad baa looga yaqaanay meelaha qaarkood meelaha garanayo aad baa loo maaliyaa dadka isu maalin jireen markuu ninku xoogaa ninka reerkii maarata maxay ahayd dan yar oo kaleeto waxaa laga yaabaa kan inuu neef maali kaana neef maali 3 neef reerku xoolaba uma dhalinba waxba ma haysaninba 3 neef 4 neef markii lagu maaliyo reerkaad ka mid noqon caanaha cabbi oo dhiishaad lulanaysaa marka waa wanaag weeyaan wanaag iyo ixsaan la isu galay wey Anas ibn Malik radiyallahu anhu qaala wuxuu لما قدم المهاجرون مركي سوغان المدينة مدينة سوغان من مكة أي كي مادين وليس أوصنهن بأيديهم قمعه أوصنهن يعني وحبا ما أهانوه حوراء ما أهانوه وحميس بين شيء ما أهانوه وكانت الأنصار وحيهين أهل الأرض دولك إسكاله يوال عقار يقريه عقارك وقريه حولها ما قرتنا اللي يهدو أي عقار اللي يهدو فقاسمهم الأنصار بأو قيبيي على أن يعطوهم إلى السيان حيكون قيب صدير على أن يعطوهم إلى السيان ثمار أموالهم مال كوضة ثمر توضة من هذا السيان ويكفهم إيوان أي ككافيان العمل شقضة إيو المؤنة ندوى معناها وحي كف الله ويصل كذا معاني بدي قلت ما داي وهذا هو شقضة إيو هوش هذا ويان يعني مؤنة الزراعة مارت محايا هيدا هوش هذه إيو هجاجين تدي بكجا في العرية marka waxa li xoolaha kolka hore iyaga ay xoolaha aanu qaybsano rasuulka diiday
haddaba ha nagaga filaadaan maarata maxay ahayd shaqada ha nagaga filaadaan beerihiina hanala qaybsadaan maarata waxyigeeda oo waa maxay dhulkan ay ka shaqaynayaan iyagana waxaa la siin haba geed ama hal geed baa la siinaya wakaanad waxay ahayd ummu hooyadii ya anas hooyadii ummu anas ahayd ummu sulaym ahayd kaanad waxay ahayd umma cabdillaahi ibni dalxa waa la sii tacriifinaya cabdullaahi ibni dalxa hooyadii bay ahayd cabdullaahi ibni dalxa waa ninkii qisada lahaa ee ummu sulaym habeenkii intuu wiil ka dhintay wiilkii oo meydoo meesha yaalle intay zawjkeeda ummu sulaym isu qurxisay abu dalxa isu qarxiso habeenkaas habeen ilmooda inay tahay dareemaysa markaasay kani kaa tegiye bal ilaahay ku kale inuu ku siiyo markaasuu isna dee naag markay isqurxisho isbarfuumaysanin raggu xoogaa waa maarata maxay isqurxintu way kicisaa ragga isqurxintu iyo sagaajinta iyo haweenka waxa laga rabo wey marka waa kii asiibay kadibna habeenkaas yuu calool galay kadibna xaafidulqur'aan bu isaguna noqday nin wanaagsan buu noqday nabigaa u duceeyey ciyaalkiisa xufaadulqur'aan bay noqdeen oo rasuulka u bixiyey baaraka allahu fii leylatikuma habeenkiina allah idin barakeeyo marka waxaa loogu soo darahaya loo keenayo loogu tacriifay nin la yaqaano oo ducadii nabiga ku dhacday weeyaan fakaana waxay tahay ummu sulaym ama ummu anas midaa tiraahdeedba labada hooye u tahaye acda tii siisay kaanad waxay ahayd ummu anasin acda tii siisay rasuul allahi sal alla alay rasuulka ilaahay cidaaqan bay siisay geedo timireed cidqigu waxa weeye geedaha rucubaha uu geedku bixiyo wey hadda geed bay siisay geedo ayay siisay faacdaahunna cidqigii geedii wuxuu siiyey ummu ayman buu siiyey mawlaatahu mawladiisa ahayd yani isaga xoreeye wey iyadii mawlaadii ummu ayman la sii tacriifinoo ummu usaama ibnu zayd weye ummu usaama ibnu zayd usaama ibnu hooyadii wey qaala anas ibn maalik wuxuu yidhi falamaa faraqa markuu ka faaruqa annabiyu sal sl nabigu min qatli ahli khaybar min qatli mise min qitaali biduu qoray saasaa fiican waa isku macluun laakiin min qatli ahli khaybar ay min qitaali ahli khaybar reer khaybara dagaalkood markuu ka soo noqday uu ka soo faaruqay oo fansarafa uu soo gadamay ila almadiinati madiine uu soo gadamay uu soo noqday radda way celiyeen almuhaajiruun muhaajiriintii ila alansaari ansaar waxay u celiyeen manaa'ixahum geedihii ay maaliyeen geedihii ay dhaheen iska isticmaala oo midhahooda cuna ilan geedka lama siin asalkiisi allatii taasoo kaanuu ay ahayd manaxuuhum kuwii siiyey min thimaarihim geedhaha timahooday ka siiyeen oy dhaheen geedaha qaata oo midhaha ka gurta wixii ka bax geedka asalkiisa waxaa iskale nimankii lahaa baa iskale faradda nebiyu sal slam nabigu wuxuu celiyey ummihi يعني أم أنس بالله وضعها ضمير كان أنس بكل قضية أمه أي أم أنس وحو علي عذاقها جيت ميلت كذي علي جيت ميلت كذي أيو علي طيب وحو الجدي هذه السيسي إذن جدي النقاط وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحزي أم أيمن مكانهن أي مكان تلك العذاق geedahaas maalka ku ahaa ee la siiyey ee inay ka guratoon ahayd min xaa'idii beertiisu ka siiyey beertiisa ayuu qayb ka siiyey ummu ayman markii loo yimid ee anas uu maartay sidaa ula yimid inay maarta ku wareejisa ahayd iyo anas siday qabatay waxay ku tidhi ma inaad qaadataan wallahi ma qaadanaysa rasuulku waa taagan yahay markaasaa wuxuu yidhi ummu ayman waxaas qaado geedkaa qaado laba geed qaado saddex geed qaado ilaa intaasoo geed uu siiyey oo maarata meel kale laga siiyey oo ay ku kalsoonaatay marka ay maarata maxay degtay oo ay maarata iska celisay wey geedahana waxaa la ujeedadu waxay ahayd maniixay ahaydoo maal bay ahayd maal baa la yidhi oo geedka ka guro midhaha ka guro ee yad ahaan geedka dhan looma siinin markii intaasoo shay uu siiyey ayay raalli noqotay saas ummu ayman ay raalli ku noqotay marka waa la ismaalin karaa xoolaha ama neef nool ha noqdo ama geedan maarta sidan kuwan oo kaleeto geedan de waxa weeye geedku geed go-aya maaha geedahani waa geedaha geetimireedku meesha unbu ku olahayaa sanad mar waa laga guran sanad dambana wuu dhali wahaakada waxaa la mid a geedaha noocaasa sida maarata maxay cambaha iyo liinta iyo bambeelmada iyo
tufaaxa iyo waxyaabahaas geedaha noocaasoo kaleeta yaa lamida iyaguna midhaha bixiya. marka iyaga laftigoodu geedka asalkiisa adoo leh yaad dhihi kartaa sanadkii geedahayga maal intaasoo geedu maal baan ku siinaya. markuu ay bislaadaan yuu midhaha ka guran oo waxayn timi midhaha ama waa iska ama ha qaato ama ha cuno ama ha gato isaga iskale. طيب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري 40 خصلة أفرتن شيء أعلاهن مد وقص الرئيساي منيحة العنز في اللي اسمه وقص الرئيسا في روايان اسمه ما من عامل من شقين يمتلو يعمل كشقاية بخصلة منها هل شيء كمذا رجاء ثوابها يسوى وثواب كذا أجري رجينية وتصديق موعودها يسوى الرميسان وحين لغيبه إلى يكيبه يقول هيليو إلا أدخله الله إلى حقوق بها بسببها على الجنة بحقوق لي إلى الجنة حقوق لنا أفرتك أخصله روحي كعمل فلا أفرتك أخصله ما قرنيم منيحة عنز ما قصر الرسالة يلي مالين تأمبو هلكا مالين ونيف عري الله اسماليو وين فاري هدي لو ماليو oo aad lisatid maarad maxay hayday waad ku cadaysanaysaa ilmaha raashiga ugu cadaynaysaa wax badan bay ku tari khayraad badan baa laga heli. marka fadliga ay leedahay maalinta xoolaha la ismaaliyo fadliga uu leeyahay ayuu maarad yo inoo cadaynaya xadiisku. kitaabu shahaadaadkii uu kitaab yahay. جمع شهادة ويا ومرخاتي روح وحقره وحكم مرخاتي كعو كاسو باويست. باب لا يشهد كما مرخاتي كعي على شهادة جور شهادة بينات كما مرخاتي كعيو إذا أشهد هذه المرخاتي قليل هذه شهادة مارد محايا هيدي شهادة جور ومد حد جذبة وحبا كتيرين وحباد إلى اللي خلاتي كان نقو كما مرخاتي باويست ودي ليس حديث وحباط له. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ضدك كو خير بدن قرني وقت جاي ثم الذين يلونهم كو كسي حقوي ثم الذين يلونهم كو كسي صدح ثم يجوا حيمانيا اقوام قليا من تسبق اي كوريس شهاده احد يمد مخاتيجيس يمينه با كورينس ويمينه شهادة أحد مدكود شهادة كهرين يمينه دارته مرخاتي كهرين يسقون دارنين أيو مرخاتي بفرهايا ويمينه يمين كيسونه شهادته مرخاتي يا كهر مري سوي كذا وحوي وانين يسقون مارته مرخاتي ولا قد ضلبين يوسف صادقي يسقون دارنين مكتب بالله كوجين وحين الربعين لسكات كيو مرخاتي مركات نقطيد oo lagu marxaati gasho waa inaad wax ka shamsi adigu sida qoraxda kala ubtid inaad ka marxaati noqotid way niman baa wanu fiirsanayeen masaasa ha waan marxaati noqon buu waan ka cayaabu nin baa maalin ii sheekaynayo wuxuu yiri qola maxkamad baa la soo saaray nin baa la dilay magaalada Jigjiga marka waa qiso dheer laakiin muhiimadu ma ka soo qaadanayn nin boolis ay igu marxaati kacay anuu ma dilin bool ninka waxba ma yeelin maxbuus baa waan habwi waday marka waxay ahayd buu intuu kaxeeyo xaafadayda taw oo ka soo wax inaan soo celiyo qola kala dhexda u gashay malaha adugu malaha ninkii xabad baa lagu ftay kadibna kana la qabtay kan ila wuxuu xiran yahay wali baasha ku xunay bas ولا يسوق حيي بولي مرخاتي بعد يا مرخاتي كاملين وحيري ماشو ايت المامي هل كان ايو مساجد كاس جمعة ما يفر ان كش الشيسة وكير شيساس له اما انت اسئل تشرتا هذينك الشيء كذا شيء سوى كشيس هيك هرمك انت اسكده هل كان الى هالكاس نين اوتشيري دولكم وديسنيه dhulkuna wuu dhisan yahay magaalo dhisan way wadadan uu joogaa ay avenue uu jooga soo qaad maxay ninka marahaya wada xaga ka martay maxay leeyahay iyadoo maxay noqonaysaa
لا واكم انه خيغه إلا من مياه كاس oo dhulka dhisana wayna ka shaysaa taqriiban meesha halka nin joogay ayuu yiri marxaati baan ka ana arkay markuu dilahay markaas ali kitaab ku dhaaro kitaabu baalaha ku gooyay yani wax la yaab leh waxa ragii qudaad ahay qaadahayay yaa rumaysan waayay marxaatigiisi meeshuna de xoogaa wax iska jiray ama joojin fara badan iyo waxbaa iska yiri jiray adu waa la xukumay xabsidayn baa lagu xukumay laba bilood miyuu ku jiray laga soo daayay ilaahay markiis wax ilaahay u qadaro cajiib way marka shahaadatu jawrkaas taas weeye ragal ka hormarayso isagoon markhaati la dhihin anaa arkayay buu leeyahay aniga maarta waan dhaaranayaa dhaartu la soo booday ayib baabu maa qiila fi shahaadati zuur shahaad markhaati beenaalaha beenta ah ee baadilka wixii laga yidhi can abi bakrata radi allahu canhu qaala wuxuu qaala nabiyu sal ly slm wuxuu nabigu alaa unabiukum miyaan idinka warramo biakbari lkabaari miyaan idinka warramin ma idinka warramaa wey ma idinka warramaa dembiyada kiisa ugu weyn ثلاثا صدح ويان ثلاثا صدح بقى أقوين وي أيه مثل ثلاثا صدح جير بكو علي عفوا أنا كان خلد ثلاثا صدح جير بكو علي صدح جير يوحكو علي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا وحيدها النبي وتشيدد والنبي سأل عليه الصلاة والسلام عليه صحابة أيو سوت شيدين يا ولا سوت شيدين يا وأين قماتي مهمة اللي وين بلغها الله إياه هذا مال اللي حشال مين يعني حنا كيميلاس ترام باور وين دي دونا ليل وين بوصودا بالي وحاصل وحوي وجديسو inuu maartay caalamka soo jiro muxuu dhihi doonaa wariye kasta iyo idaacad kasta iyo telefishin kasta waa is diyaarinaya marka isagoo waxba ma dhihine oo wax weyn ma dhihin wax kalaam faadli horu yiri mu sheegay waa shaydaana rasuulku sallallahu alayhi wasallam saxaabadu inay ihtimaam saaraan warkan ay ihtimaam kasta qaalu waxay dhan balaa ya rasuulullah rasuulka noo sheeg qaal al ishraaku billahi ilahi loo shariig yeelay dambiga ugu weyn waa ilahi wax la wadaajiyo cibaadadiisa wa xuquuqul waalidayn labada waalid caaq lagu noqdo waalidka caaqnimadiisu mas'ala saaran وجلس رسولك وصوف فريستي وكان متكئا رسولك يردنجيك سناي وصوف فريستي طيب فقال وحي ألا وقول الزور ألا هوي وقول الزور وهذا الكمرخات بيان لها رواتك قول كات وكعلي ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور ومرخات بيان واسمدوي قول الزور وشهادة الزور ومرخاتك بينتا أول مرخاتك بينتا ويان وركاس وكأت كرسول فما زال كما زول الرسول صلى الله عليه وسلم يكررها كمون دمون الدينين إنه كعل علينا يوم حتى قلنا إلى أن الله ليت وشليت زكاة مسكاموس رسولك هذا كان وكعل عليه وما نقعد كيه مؤاموس وهذا كان معنا هذا كسوء اللي بي رسولك الدريم هيان مسألة سهلا مع مرك قول زوركم بين مرخات بين له هذا الحوي حقوق دليهين أيها دد وريتشينيسا أما حقوق بعض آسيسا مالين أين وحبا قرصونين أيها لوكين هي نسأل الله السلام مرك أكبر الكبائر من رسولك صلى الله عليه وسلم دنبيذك أقوين إيوي كالوين صح اشراك بالله أقوين يا أقوين هذا حقوق الوحي الجنسية حديث كي كلاته مارتي المهلكات أنا وإنه صوم مرة في الحياة هي تضبطها طيب marka wax aadan humi waxaad ka shamsi u humtidun kaga marqaada waxyaabo aad shaki kugu jirjiro waxba ma hubo dhan wax aan ogahay ama aan hubo masalada ma jiro midda kale markaad markhaati furi waxbaa saa ahaa iyo lagama rabo Soomaalida mashkiilaa jirta nin baa markhaati fur la dhihi oo wax sheeg la dhihi markaasuu xagga ka wareego war su'aal gaaban baa la weydiiyey ka jawaab maxaad wareegaysaa باب وحباب يا شات العمان إنك مارت إن دولها يو أمري أمر كيس وحمره
يو نكاحه جور كيسة وإنكاحه إنه وحسو حجوري نكاح وحسو جور صدي وإنكاحه وحسو جوريه جواره مارد أبو يهم وجوريه ومبايعته يبيع صدق وحكا قطه يكاه الله وقبوله إن لا أقبله نك إنها في التأذين آذان كالو أقبله وغير كيبا وما يعرف وحي لقرنا بالأصوات صوتك أو لقرته صوتك صوت كيبل ما ها أتقرتت تاسوي عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مغلي رجل طبعا إنك مالر بنوغا سوقاضها يا حديثك لكن إمام البخاري رحمه الله تعالى آثار يا حديث كليو كينها هي لكن مختصر وقابلنا هي إلا بابك نساق ما كان سنين رجل مو مغلي يقرأ آخرية في المسجد الرسول كان صلى الله عليه وسلم مغلينين حبينين من مساجد وحقوا قرآن وآخرية فقال رحمه الله اللهم حريصه وادعي رسول لقد أذكرني وحي حسي آية كذا وكذا آية انتاسو آيات أسقطتهن أن كطوري أما أن هلمامي من سورة كذا وكذا سورة هبلة انتاسو آيات أن كهلمامي ولا هلمانسية أما أن كردي معناها آخر سكودي يعني مارتم هاي هذا يحسسي يحسسي مركا ننكاس محساو لي رسول صلى الله عليه وسلم حساو لي ننكاس عدكيسو قرطي محلو شاهدكو حوي عدكيسو قرطي إيا آياتك الآخرية هايو أيو قرطي ننكا لا ينوصو صعصنا طيب هذا وحو كهل لهيب دغيستي والسمع وعنها رضي الله عنها في رواية قال وحيدي تهجد النبي صلى الله عليه وسلم هبين بو صلاة الليل تكني تهجد بتكني في بيت يقول لي كنت تهجد هي صلاة تكني فسمع وحو مغلي صوت عباد نك عباد ليها صوت كيسو مغلي عباد ابن البشر الأنصاري والأشهري نكاسو مارت مغلى عود كيس يصلي سو تكني في المسجد مساجد رسولك صلى الله عليه وسلم مساجد كانوا يقول النبي وسكود دغنايين marka wuu maqlahayaa فقال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم عائشة صوت عباد هذا كان ما صوت كنك عباد ها صوت كسمية هذا الكيس لواقع سمية صوت كيس قلت وحان نعم هاي يدون يقرنيس اللي والو سو قلي جيرانو رسولك يسور راعي جيرانو ويقرنيسا ها باني قال وحي اللهم ارحم عبادا إله عباد الله حريص إلهي عباد قلنا حريصة أي رسولك صلى الله عليه وسلم مركا وحاوية أصوات الروح هدو كلا يقانو صوتكي هبل بان مقلي وديه كرا او هو اذان هدي عبد الله ابن ام مكتوم ايام مؤذن كاو اندلا وانه صوم مري وكان اعمى ولا ياذن الا حتى يقال له اصبحت لقينا لو شيغو صوتكيسا لا غران جيري marka dadkood صوتkiisa waa la kala garan karaa waana la kala sooci karaa إلا إنه بصوت كم ما يسكت صوت صوت ما وإلها قدرة كم طيب وحاس ضد عدوك جوا بلايين داس نن الصوت ويريه أما ما بتجرب نن الصوت متشر عطي اسكت من ما قارب يصير له صورة أنا من مدو يقويري هي هو إسلا شيء واحد لو متانها هل أقحن كلاها هي كلا قاي بيصير بس واس هو إلهي أمركيس لما كلا جران كرو إلا أن روح أفير صديق برتي مويان ما كلا جران قرت عدك حتى واسك كميت صوتك عجيب كغوان إلا هاك كلا قاضي بقى مركا صوتك ولا كلا سوعي كرا مرخاتي هان روحه مرخاتي كتاي وحان مرخاتي كاي يساس قصة الله شيغا الحافظ أبو الحسن الدار وقتنا أيا وحال ليلي قولوا صومري نين حافظوها نين عجوبوها حق حفظي حصومري بالي قولوا لمن وضح الله استقال يسو هذا الصدق على محي ودقيستي مركي أدوغو way kala tageen oo kadibna markaas waxa la yiri waxay isku haysteen maalin dambe la markhaatidina ninkaas markhaatino ahaa baa leeyahay markaas la soo kaxeeyay isaga oo maxamed markhaati ka wuxuu anu luqadooda ma garanaynin
luqaday ku hadlayeen ma garanaynin laakiin waxay lahaayeen iyo say u lahaayeen baan sheegi waxay lahaayeen iyo say u lahaayeen baan u sheegi oo muxuu dhaheen markaas wuxuu yiri kan wuxuu yiri kana wuu xifdisan yahay erayadii wuu xifdisan yahay mana yaqaano waxay yihiin laakiin erayadu xifdiday bas waa la dhageystay dadka luqadda garanaya dhageysanaya moogtahay siday u ahayd buu sheegay bas waa la kala xukumay waa la kala xukumay marka dad waxaa jira soodadka aan dadan isku qasin baa jira hebel sawdkiisa hebel sawdkiisa aan isku qasaynin dadka indhoolayaasha badankoodu indhoolayaasha qaarkood maalin hadduu ku maqlo bas wuu ku aqoonsan hadalkaaga qaar waxaa jira hadday maalin maqlaan xifdi hebel soo maaha sawdkaas waa hebel buu leeyahay hay xageed ku aragta hal maalin buu ku arkay dad waxaa jira hal maalin hadduu ku fiiriyo hal maalin hadduu ku fiiriyo bas maalin dambe ayna ka dhumayninba qalbigiisa ku sawiran tahay hebel saa iyo saas markuu arko waxshi baa laga sheega waxshigii xamza diin oo kaleeto ayaa laga sheegaa nin baa u yimid buuri waanu nimid buuri isagoo weliba xoogaa inuu yar khamraysan yahay bay sheegayaan isagoo shaam jooga markaasaa saa yaan saa u fiirinay buuri waxbaan rabnay inaan su-aalno markaasuu yidhi buuri waanu weydiino waxbay weydiiyeen markaasaa wuxuu yidhi hebel wiilu dhalay yaa tahay buuri hadal macnihiisu ayaa maalinkaas markaad dhalatay eed yarayd eed ilmaha yar ahayd aabbaha iyo hooyada mise adigu hooyadaa oo ritiif saaran oo laguu dhiibahayaan arkay buu yaalay ilmo yaro markaa dhashay oo loo dhiibay hooyadii loo dhiibahayo markuu nin weyn noqday maalinkaasaa ugu dambaysay nin weyn markuu noqday saaduu u fiiriya wuu gartay alloo ka waran dadka marka qaar ilaahay siyaa jira waxba lagu kala soocaa soodadka waa wax jira way wallahu a'lam sallallahu alayhi alhamdulillah rabbil alamin hadith al-ifki dheeraa inoo imanaya marka waqti buu qaadanaya la geli kara kama gaadhno